بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. soo dhawaada walaalahayga qaaliga ku soo dhawaada YouTube channel keena Mina Beauty and Healthy Cooking. maanta waxaa idiin wadaa face mask ugu talagalnay inuu noo sameeyo brighten iyo dhalaal. u baahan tahay inaad ogaato waxaa ka hirgelin fiidiyoga dhameysa fadlan. walaal hadaad ka heshay fiidiyogan like garee commentigana hoos noogu reeb. bismillaahi raxmaani raxiim. face maskigeena wuxuu ka koobnaan doonaa qaando yar oo caano booro boodhara, qaando yar oo malaba, jab yar oo mooska waa inuu aada u bisiliyo jilcan yahay, caano dhaaya, hal qaando ayaan ku qasan doonaa uga baahannahay insha allah. masha allah tabaarakallah. face maskigeena wuxuu noo sameyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo oo nooga faa'iideysan doonaa wajiga inuu cadaan noo siiyo, wajigana uu ka dhigo baby face oo waji jilcan oo masha allah sibsiba. marka iska dhaqdo waji naacim ayaa yeelan doontaa hadduu ilaahay yiraahdo. ka bogasho wacan aan gudagalna qaabkan u sameysana oo hirgelin insha allah. qaabkan soo dardarsanayno waxaan soo qaadanay jabkii mooska ahaa insha allah. jabka mooska fargeeta ayaan ku burbursanayna hadduu ilaahay yiraahdo. waa ku ridqaysaa, waa ku jijibinaysaa ilaa uu mooska ka jilco oo iska dhex galo oo kuuskuuskii wax dhan ka bo'o. hadda caanaha hore uga darno isqabsanayaan, kurtun ay noqonayaan. laakiin marka aan mooska maash gareyno oon burburino hadduu ilaahay yiraahdo markaas ayaan caanaha ku darsanaynaa. qaab kalena waa u sameysan kartaa hadduu alla idmo, oo mooska, caanaha iyo malabka iyo inta qaandadii dhaayda aheedoo qasneed, caanaha jilcanahay ayaad makiinada isla gelinaysaa. qalaadada waa isku shiidaysaa asagoo aada u jilcan oo maasha allah kareem aa umaleynayso ayaa wajiga marsanaysaa. qaabkan kalena waad isticmaali kartaa insha allah. qaabkan ayaan anaga isticmaalaynaa maanta. fargeetadeena ayaan ku maash gareysanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. haddana waxaan ku darsanaynaa qaandadii caano booraha ahayd. aniga iskuma badinin sababtoo ah keligaa isticmaalaya. mooska jab yaraa soo goostay, waliba moos jilcan ayuu ahaay. qaandada isticmaalayo waa qaandada yar, midda cuntada qaandada kasii yar waaye hadduu ilaahay yiraahdo. shay walba qaandadaasaan u isticmaalay. qaandadaasoo caano boodhara, qaandadaasoo malaba iyo ayadoo insha allah caanihii dhaayda ahaayo hadhow dib uga qasan doono. hadda waxaa soo dhexgelinaynaa mooskii iyo caanihii insha allah. si fiican iskugu soo walaaqeynaa. intii malabka ahaydna insha allah waa ku darsanaynaa. intaas si fiican isku dhexgelinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo biidnillaahi albaari. face maskigan waxaad uga maarmi doontaa insha allah kareemyada la isticmaalo ee wajiga loo isticmaalo, sababtoo ah markaa isticmaasho waxaad dareemaysaa ood iska soo biyo raaciso inaa wajigaaga kareen ka dhaqday oo kaleento. aada ayuu u jilcayaa wajiga, sib smooth caadihiina kuu noqonayaa, dhalaaluu kuu sameynayaa maasha allah. wajiga gabdhaha waliba wajiga caatada ka ah wajiga waa u naaxinayaa, waji bucbucoo yeelayaa hadduu ilaahay yiraahdo. waa face mask aan kiimikada uga maarmi karno. kiimikada wax fiican ma aha, waa waxa dhowta kugu soo noqonayo adiga oo dhib ku keenayo. laakiin waxaan jikadaada yaalo calooshaada gelin lahayd. mooska waa cunaa, caano booraha kadalik, malabka wax dhibaato ku keenayo ma jirto biidnillaahi albaari. ka bogasho wacan walaalahay insha allah. aan u faa'iideyno walaalaheena kalanto. hadduu fiidiyogan ku qanciyo please like garee, commentiga hoos noogu reeb. haddaa nagu cusub tahay subscribe garee. masha allah tabaarakallah. face maskigeeni wuxuu noogu soo baxay sidan quruxda badan masha allah. face maskigan wajiga waxaa marsan kartaa isbuucii 2 jeer 45 daqiiqo
ilaa 30 daqiiqo timeka inta haysid isaga meer biyo diiran oo qandaca wajigaaga kaliina kolka hore mari insha Allah soo dhawaada walaalahayga qajafta badan ka raali noqda dhisma agteeda ka socday salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh fi amaanillah walaalahey inoo kulanti dambe oo xiiso leh iyo fiidiyoyaal inta kasii wanaagsan insha Allah